بسم الله الرحمن الرحيم وعن هالكن يقول وداقنا والصحافات كصابصا حالة مركبك MV Sea World دولة بنتلان waxay ka mahadcelinaysaa xiriirka iyo taageerada walaaltinimo ee dadka iyo dawladda Turkiga ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed dawladda Puntland ee Soomaaliyeed oo ah xubin kamid ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya mas'uulna ka ah dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed ee Puntland si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dawladda Puntland waxay aad uga xun tahay warqadda maanta 23 July 2025 ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu sheegay in Puntland ay tahay burcadbadeed afduubatay markab ciidanka ilaalada xeebaha dawladda Puntland ayaa gacan ku soo dhigay markab lagu magacaabo MV Sea World taariikhdu markay ahayd 18 July 2025 ciidanka ayaa helay xog la xiriirta markab xamuul ah oo muddo 2 maalmood ah warwareegayay meel u dhow xeebta bareeda ee gobolka Raascaseer ee Puntland ciidanka dawladda Puntland ayaa markabka dushiisa ugu tagay dhalinyaro kalluumaysato ah oo sii fuushay markabka ka hor intaan ciidanku gaarin hase yeeshee ciidanka dawladda ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan markabka kana badbaadiyaan in hantida saaran ay gacanta u gasho dad shacab ah waxa isla habeennimadii 18 July 2025 dawladda la soo xiriiray ganacsato reer Muqdisho ah oo sheegtay shixnada markabka saaran rabtina in la sii daayo markabka sidoo kale waxa dawladda Puntland la soo xiriiray safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho kadib markii ay baxday xogta markabka isaga oo sheegay in shixnada saaran markabka ay leedahay dawladda Turkiga sidaas darteed ayaa dawladda Puntland u go'aansatay in markabka la keeno dekedda Boosaaso si loogu sameeyo baaritaan dheeri ah waxa kale oo xusid mudan in muddadaasi laga soo bilaabay 18 July ilaa maanta oo taariikhdu tahay 23 July 2025 aysan dawladda federaalka Soomaaliya wax war ka soo saarin xiriirna nagala soo sameyn xaaladda markabka iyo shixnada uu sido toonna taas oo abuurtay shaki cid leh shixnada markabka saaran haddaba warqadii maanta ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya waxay cadeysatay xogaha iskhilaafsan ee shixnada markabka iyadoo oo sheegtay in shixnada markabka MV Sea World ay qayb ahaan leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed qaybna ay leedahay Turksom dawladda Puntland ayaa cadeynaysa in dhammaan shixnada saaran markabka ay tahay agab ciidan military equipment aysan ku jirin wax u muuqda alaab ganacsi noocay tahayba dawladda Puntland waxay wali sii wadaa baaritaanka markabka iyo cidda iska leh shixnada uu sido si loo hubiyo inaysan ku dhicin gacmo u horseedi kara dhibaato amni iyo xasilooni darro dalka Soomaaliya dawladda Puntland waxay ku soo dhaweynaysaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Turkiga inay qayb ka noqdaan dhameystirka baaritaanka markabka MV Sea World. Mahadsantiin.